munaasabadani waxay munaasabad si weyn loo soo agaasimay isla markaana ujeedkeedu daaranaa diyaargarowga xuska 18 May ee fooda nagu soo haya ayaa waxay ka qabsoontay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxaana munaasabada goobjoog ahaa wasiirada wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha waxbarashada iyo handhiga agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xildhibaano iyo marti sharaf aad u tiro badan madasha ugu horeen waxa si weyn uga dhex muuqday bahda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta kuwaasi halkaasi ku soo bandhigay suugaan kala duwan ugu horeen waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta maxamed cali weji caawa gunaadkeed baan ii sheegaya kooxdu waxay waday heesaha ama majaajilaha ayuu baa soo koobaya waqtiga iman doona insha Allah halka ay taalka nahay اعتراف جيلوسنا جمهورية الصومال أيام الجورية أنا يلقوا صوت دوين لها أيام سميني. sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan caawa munaasabadan waxay ahayd xogaa dowlad tusa oo waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafintu ay ugu sii diyaar garoobayso munaasabadda 18 May xafladda dhici doonta haddii la ka dhigo oo la soo hordhigayay guddida qaran si ay u arkaan oo si eegaan sidii horeba loo sameyn jiray sidaasay daaran tahay qayb kale way inoo harsan tahay oo xidigaha geeska iyo dayax baan oo iyaguna habeenka khamiista soo galayso inoo iman doona haddii la ka dhigo sidaa awadeed caawa waxay ku koobnayd barnaamijkan oo dhami qaybta dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta ugu horreyn dawaynu wada daawarnay waxaan marka ugu horreysa u mahad celinayaa waaxda dhaqanka oo weji madax u yahay iyo dhammaan qaybahooda kala duwan waxyaabihii la yaabka lahaa ee halkan ay caawa ku soo bandhigeen oo runtii waxay ku xasuusinaysaa dee waaye iyo berihii hore dee riwaayadii waaweynaa la dhigi jiray maalmo dhaweyto aan aada la yar ballamayay baan ku idhi horta geeraaradii imika waa la sheekeeyaa un marka riwaayadaha la dhigayo geeraaradiisaa la isu daba tixi jiray miyaa la shax guuri waa la garan waayey mise waa la ilaawayaa oo la qaban kari maayo waxay igu idhahdeen habeenkaanu soo bandhigno un eeg sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradda biyaha iyo weliba sidoo kale arrimaha gudaha Soomaaliland intii gudaha ayuun baan ku waqtiga badan siin jiray laakiin waxaa muuqata inuu cali dibadda aad iyo aad u qurxiyey waana ku faraxsanahay inay hadda runtii ka muuqato isbeddel waa sababta qofku markuu meel ku yara raago waa laga yara durkiyaa oo meel kale la geeyaa si feker cusub qof wadaa uu u yimaado markaa meesha 4 sannadood iyo dhowr bilood baan joogayoo waa laga yaabaa inaan intaa tahli waayey marka inuu cali ku guulaysto aad baan ugu faraxsanahay taasi waa taa sharaf iyo karaam ay inoo tahay dadkii xorriyadda ingiriiska ka howlgalayay baa jooga marka waa meel aynu u baahanay inaynu aada ugu mintidno waana meel aynu u baahanay inaynu aad iyo aada u barbaarino aad iyo aad caawa waxaan ugu mahadnaqayaa fanaaniintii maaweeladii heesihii barnaamijkii caawa halkan laga soo bandhigay oo sidii hadda kooro oo iga horreeyeyna ay u sheegeen oo ah aqoon baa ku jirtay waddaniyad baa ku jirtay farsamaa ku jirtay farshaxan baa ku jiray arrimo fara badan baa ku jiray masalan suugaanyahanka marka la eego suugaanyahan fara badan baa waa la wada gabiyaa waa la wada heesaa waa la wada gabiyaa laakiin haddana suugaanyahanku wuxuu isdheeryahay farshaxanka ninka suugaanyahanka weyn ee abwaankiihi had iyo jeer bakhayl kuma aha inuu qiro gabayaaga kale xaasid maaha laakiin baydgaabku waa xaasid ya ma ogolo inuu nis kalo suugayahana la ammaano ninkii allah raxme hatraawi baa had iyo jeer wuxuu ku halqabsadaa suugaanyahanada cali suguliyaba ku halqabsada markaas su-aalaad fara badan baa beri la weydiiyey do arrinkan aad leedahay oo waxaa ku jira afaan la fahmaynin oo kan markaa cali sugulle dun carbeed buu ku halqabsaday ilaahay labadaba ha u naxariisto wuxuu yidhi cali sugulle isagaa wuxuu ku wanaagsan yahay qofka yar iyo aqoon-yahanka
iyo reer guuraaga iyo maxaanku dhahday brofessorka iyo dadka aqoon-yahanka inuu aniguna waxaan ahay cabdiraxmaan british weliba sidoo kale cabdi cumar jibriil